ha dooran ninku yiraahdo ana lacag ku siinayo iyo code fadlan ha dooran waxa doorataa midkii aad markaad khudbadihiisa dhageysatid wax qabadkiisa hore markaad aragtid fadlan muuqaalkaygan xildhibaan walba oo Soomaaliyeed oo la doortay iyo kuwa la dooran doono fadlan gaarsii. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Halkan waa bartida horyaalka shacabka ee YouTube-ka mar kale iyo muuqaal kale oo xiiso leh. Waa Abdulqaadir Xasan Duuli. Maantay muuqaalkaygan wuxuu la hadlayaa waxay tahay waa xildhibaanada cusub ee dalka Soomaaliya loo doortay iyo kuwa hadda ka dhiman ee loo dooran rabo. Xildhibaan waxa laga yaabaa haddii aad wadanka ku dhalatay oo wadankii aad joogtid aadan war ka haynin dadka Soomaalida ah ee milyaamaadka gaaraya ee qurbaha u qaxay noloshooda qaabkay ku sugan yihiin xaaladooda waxa ay mar walba tabayaan waxa ay ku riyoodaan culayska haysta nolosha dhanka familka dhanka ilmaha nolosha saxda ee ay ku jiraan inaadan war sax ah aad ka hayn haddii aad xildhibaan aad ku dhalatay wadankii ee aad wadankaaga aad joogtay ilaa iyo haddana wadankii aad ku sugan tahay nolosha qurbaha fadlan waxaan kaa codsanayaa inta aadan madaxweyne doorashadeeda aad gaarin ka hor dadka ka wareyso haddii markaa xildhibaane aad qurbaha timid qurbaha qaxooti ku noqotay aragtay nolosha ka jirta milyaamaadka shacabka Soomaaliyeed ee qurbaha ku sugan waa fahansan tahay waxay tabayaan waa fahansan tahay waxay u baahan yihiin waa dareensan tahay nolosha ay habeen walba ku seexdaan waa dareensan tahay ilmaha qurbaha ku dhalanaya xaaladooda waad og tahay kuwa qurbaha joogo ee darbiyada daroogada ku cabaya waad aragtaa hooyooyinka maalin walba qurbaha degan ee ilmeynaya waad aragtaa hooyooyinka ilmahooda laga qaatay waad aragtaa hooyooyinka aan luqadda garanayn ee 5 ilmo 4 ilmo ku jeedaya qurbaha dhibaatadooda waad aragtay ayaan filayaa de qurbaha hadaad aad ka timid oo qurbaha aad joogto marka xildhibaanayaal dhammaantiin mudanayaal iyo marweyn maadaama aan muuqaalkan aan adeenka idinkugu talagalay oo aan rabo inaan adeenka idinkula hadlo fadlan waxaan kaa codsanayaa waxay tahay adduunku noloshu marba waa heer dunidii waad aragteen siday maanta tahay adduunkii waa la hormar halka la maraayo waad aragteen teknolojiyadu halkay gaarteen waad aragteen horumarka dunidu ay gaartay waad aragteen horumarka ay ku tilaabsadeen dalalka dariskeena waad aragteen qaabka ay yihiin waad la socotiin waad ka dhagsantihiin in maanta tareemo ay ka shaqeynayaan wadamada dariskeena inay diyaarado kala duwan ay leeyihiin inay bulshadooda ay si wanaagsan ay wax ugu qabtaan xildhibaanayaal mudanayaal iyo marweyn waad ka dhagsantihiin magaalada Muqdisho oo aad haddii xildhibaan lagu doorto aad saldhig ka dhigatid waxay tahay xaaladeeda sida ku suganta waad ka dhagsan tahay haddii gobol kamid ah Soomaaliya laga soo doortay gobolkaas baadiyihiisa dadka degan xaaladooda sideed waad ka dhagsan tahay hooyada maantay degan baadiyaha ee shalay haysata boqolka geela ee maantay ka gacan mara waad ka dhagsan tahay aabaha Soomaaliyeed ee baadiyaha wadankeeni ku noolaa ee baahida iyo biyo la'aanta u geeriyo xoolihiisana ay u baaba'een adoo marka xaaladda wadanka qiimeynay qurbaha shacabka joogana ay ku sugan yihiin adoo intaba inaad isku barbar dhigtid kaliya xisaabta qolgal isku soo xir abaabka fikir markaad fikirtid bal wixii kuu soo baxaa kadib qofka kuugu dhow haddaad marwo tahay xaajigaaga waa qofka kuugu dhow iyo ilmahaaga haddaad aabbo tahay qofka kuugu dhow waa ilmahaaga iyo xaaskaaga bal la wadaag
fadlan waxaan kaa codsanayaa waxay tahay maantay lacag kumanaan dollar ah oo lagu yiraahdo xildhibaan ku noqo anaan kaa bixinayo lagu yiraahdo birirta anaa i dooran inaysan meel ku gaarsiinin. kumanaanka dollar ee maanta lagugu bixiyay ee lagu leeyahay anaa maantay ka shaqeeyay in xildhibaan aad noqotid lacagtaasna ku siiyay ee birirta waa inaad madaxweyne ii doorataa, bal ogow adigoo muqdisho saldhig ka dhigan doona amnigaaga iyo noloshaadu 4 sano ee soo socota ee aad baarlamaanka ku jirtid siday noqon doonto. miyaad og tahay miyaysa ku xisaabsan tahay in xildhibaano badan oo sidaas oo kale laga yaabee in ay madaxweyne markaasi aan wanaagsaneyn oo kale wadanka intay u doorteen ama lacag ay qaateen oo ay codkooda iibsadeen ayagoo waxa waaye magaalada dhexbartakooda maraya miino ama caadi loo dilo ama miino lagu qaarajiyay oo noloshooda meel cidla ay ku baxdo. walaal waxaan kaa codsanaynaa waxay tahay maadaama aan qurba joognahay qurbaha ku dhibaataysannahay annagoo dhalinyaro ah oo wadankeena awoodno inaan ka shaqaysano wadankeena wax ka qabsano horumar gaarsiina aan og wadankeenina aan u taglana oo ay kow ka tahay amni la'aanta ka jirta. qofkii aad ilaahay dartiis aad u dooratid oo isdhahdid wadanka wuu maamuli doonaa ama ninkaas inuu maamulo wadanka madaxweyne ka noqdo ayuu u qalmaa u doora aad dhahdid oo niyadda aad iska dhahdo haddii xataa uu kaas xumaado adigu maada khasaare, adiga ilaahay dartiis unbaad wax u doorata iyo qofkaad istiri wadanka wuu u fiican yahay. laakiin inaad codkaaga gadato in shalay lagu yiri lacagtan anaa kaa bixiyay xildhibaan aan kuu soo saaray iyo coday oo aad saas uga codayso in aad tiri war lacagtan isi anaa ku codaynaya oo codkaagu meeshaas uu ku baxo waxa waa ayaa wax walba ka dar. lacag waa adduun waa la helayaa laakiin nolol lama helo. in maanta dadkeeni iyo wadankeeni xaaladiisu sidaas noqoto kuwii dalka degnaa ee waxa waaye shaqaysanayay ee dhaqdhaqaaqayana qarax iyo dil lagu sameeyo, dhalinyaradaas iska xamaaleynaysan waxa waaye ciidamadii qaranka sidaas ay u laayaan, kuwii miyigaas ku sugnaa oo dad magaaladaas oo iskaga guro miyigaas iska degana ay waxa waaye xoolahooda eber noqdaan koob biyo ahna ay u dhintaan. waxa waa koob biyo ah ay u dhintaan fadlan ilaahay xaqiisa. marka dhibaatadaasaan haysato marka waxaan kaa codsanayaa waxay tahay codkaagu waa muhiim, ilaahay dartiis wax u dooro. waan ognahay xildhibaanadii doorashadii ka horeysay wax doortay ilaahay dartiis bay madaxweyne u doorteen, madaxweynihii ay doorteenna annagu shalay waa taageersanay laakiin wuu nagu xumaa madaxweyne kadaab buu nagu noqday beenlow ah, madaxweyne aan wadankii waxba ka qaban buu nagu noqday, amni magaaladii kama jiro, caasimadii ugu soo sokaysa magaalada dhumuda dhagaxa lagu wareejiyay, nolol xumo baa ka jirta. maanta intaasoo malaayiin oo dollar waxa waaye dowladda qatar iyo wax walba intuu kasoo qaato madaxweynaha la ii doortay leey. magaalada muqdisho waxa waaye meel 30 kilomitir u jirtana waxaa soo degay waxa aan ku nool hooyo aan waxay cunto aanan haysan caaw oo baadiyahaas ka soo carartay oo xoolaheedii abaar ay soo baabi'iyeen. ilmo yar oo xalay dhashay ayaa laga yaabaa caaw waxay quutaan inay waayaan oo ay ku sugan yihiin magaalada afaafkeeda. asna waxa waaye jawaano tiradii ka bato intaasoo malaayiin lacag inta ku soo qaato wuxuu ku raadinaa in dib loo doorto. marka walaalayaal halkaas baan marayna, halkaas ayaan marayna. madaxweynenimadu waa shaqo lagu diray ee ma ahan waxa waaye meel aad ku istiraexi kartid ma, meel aad ku raaxaysan kartid ma. gaajo kaa muuqata intaad geshid adoo dhalaalayo oo wax walba iyo meel walba ay dhalaalaysa aad kasoo baxaysid ma. madaxweynenimadu waa shaqo. fadlan haddaadan wadankaaga wax u qaban karin oo madaxweyne saxa aad u noqon karin waxa waa ama aad isdhahdid war anigu madaxweyne noqonaya anaa idin maamulaya anaa mas'uuliyadda qaadaya oo halka san ugu horeysa xataa amniga magaalada muqdisho waa caasimadii amniga ka magaalada muqdisho aad waxa waaye sugu weyn fadlan iskaga tag madaxnimada fadlan iska caasi. marka walaalayaal xiliba
qofkan u baahannahay waa anagu waa qofkaas ayaan u baahan. fadlan hadduu ilaahay awood kuu siiyo maalintaas inaad codaysid, ilaahay dartiis u code, ilaahay dartiis iyo ummadaas dartood iyo waxa ay rabaan uga code. saas samee. waxa waaye xildhibaanka ninka maanta ku dhahay anaa ku soo saaray, berito markaad warqadda saxiixaysid ee magaca aad sag siinaysid asaga ma kula socdo, camera meesha kuma xidho, adiga iyo warqadaas keli ah ayaa gudaha gala. markaa labadii naas aad gashay waxa waa haddii aad qofkaas magaciisa aad sax saartid ama qof kale magaciisa aad saartid, berito lama dhahayo hebel ama hebelaayo waxay u codeysay hebel lama dhahayo. warqada meesha ka buux magacyaa la yeerinayaa, magacyadaas waa dadka codeynaya. hadhow markay dadkaas codeeyana kadib waxa la leeyahay hebel 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 waa loo codeeyay, hebel hebel waa loo codeeyay, hebel unbaa la leeyahay. ha dooran ninku yidhaahdo anaa lacag ku siinaya iyo code. fadlan ha dooran. waxaad doorataa midkii aad markaad khudbadihiisa dhegaysatid, waxqabadkiisa hore markaad aragtid, qaabkiisa aad aragtid, aad is leedahay run buu sheegayaa, kaas un noo dooro. marka intaas ayaa idinkaga tegayaa. fadlan muuqaalkaygan xildhibaan walba oo Soomaaliyeed oo la doortay iyo kuwa la dooran doono fadlan gaarsii muuqaalkaygan YouTube-ka, Facebook-ga, meel walba, Instagram-ka haddaad aragtid walaal gaarsii. marka intaas ayaa idinkaga tegayaa. fadlan jaanisaan haysanaa xildhibaan, jaaniskeena hanan dhaafin. maanta adigu jaaniskaaga waa jaaniska aad shacabkaas ku badbaadin karti keliya. haddaad badbaadisidna ilaah baa badbaadahaye waa kaas. haddaad maal adduunya aad ka dooratidna ogow cadaabtii aakhirana way jirtaa, tii adduunyana way kuu taallaa. mac salaama.